السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan meelaad joogtaan waqtigaa ku jirtaan ba intiina aan salaam jirinna dee shuqul iskuma lihin. waxaan saaka u soo gala laba doctor khalkhal gabuusi axmed tidhaahan waa doctor khalkhale kala wareegsan adduunyada ilaahay qofba qof bugtu ka liitay buu askariga hoos gala su-aalihii ninkii galayr weydiinayay baa la yaabay wuxuu jid u banaynayaa bal ninkaa weyne intaa leega dhakhtarka sheeganaya mutacalimka sheeganaya ee da-da ahi dadkii lalaayay ka warran baa layidhi wuxuu yidhi ilanimaa xishoolen dagaal xeelka waa iska badheedh yaa cuqdadii gobollada dhexe kala yimi buu la gala meel baa loo cayimaya maxay u joogi waayeen yaa askartii laysay buu u samaynayaa excuse uu difaacayaa u leeyahay lacag ku filan ma qaataano waa iska saboolo sicirkii baa ku kacayo bal wuxuu ku hadlaayeen waxaasuu uga dhigaya excuse inay laayeen dadkii yaa meel baa loo cayima meel baa layidhi jooga maxay u soo dhaafeen bal wuxuu ku hadlaaya ilah baan idku dheersheeg nin liita waa nin liita waa kaa dadkana dhigmirto weliba qofka ay arkaya oo keliya $50 bixinaya buu yiri cuqda ilaahiya bal yaa dooranaya askariga hoos geliye oo yidhi garxajis kala jabiye oo lugta qabee cidda dooranaysa waa kii dabar muuse ka dhaqaaqee markaasaa waxaa horboodaya salla caleyh ilah baan ku asay kuwa horbooday masalla caley waa foodu keenaya iyo xidhif iyo wadamada ka wada ilmaa malyuuniyo askariga raggi madigaa ka hadhayo bal hadda eeg hadda dadka dabada ka wada markaasuu difaacaya dadkii dadka xasuuqay ee laayay mudaaharaadka salmigaa sameeyey buu difaacayaa askarigii kuwii laayay rasaasta ku furay inanka askarigu uu ka mid ahaa iyo kooxdiisu raggii madigaa ka hadhay inankiisu buu difaacayaa maskaxda ku jirtaa waa tiye dhakhtar baaqsadaata dhakhtar baaqsaday baa tahay dadka loo maqaar saarayaa waa dadkaa hadda waan idiin sheegayaa dadka loo maqaar saarayaa waa dadka cidda dooranaysaa waa kay kuwa dabada ka wada ee iskaashanayaane bakti dhagaweeniyo ay ka mid yihiin cawiliyo daamurkiyo brofesor micna yare iyo muxuu ahaa ina murjilmadoobe iyo kitaab yare iyo hadda waan idiin sheegay bal hadda eeg hadda midba midku ka liitay baa lagu shaqaysanaya ee halkaa u go-ay dhuunta oo la yidhi maanta garxajisi ugu dhowi kursiga soo xidiyaa qabto oo kala qaybiya markaasaa la dhegaysanayaa soore baan u ahay weriyaha soore baan weriyaha u ahay wuxuu ugu jawaabay wallaahi iyo bilaatula weriyuu dhiidu u saara dhiida buu u saaray su-aashii ka muhiimsaneed buu weydiiyey wax laala wuxuu kaga jawaabayna male wax laga qoro male inuu khalkhal yahay khalkhal dadkum ku dhacay uu xanuunsanayo waa kaa cuqdadna sii qaaday weliba waa marafraadkii uu si soo sharaxo yaa kowdhi dee markii hore dad baaba la moodaya maanta xabad u foodaysaa cid u foodaysaa ba jirtaa bal salli caley meel hageeyo kii lahaa hablahooda baa duqsiga cunay ee ayaxa lahaa baa wada oo horboodaye waana kii kaga baxay de isagii jamaal cali xuseen ba kii ka baxay ka dareeray markay jarkii markay ka tuureen oo kii ka dareeray heesuu qaadi jiray baalki muxuu ahaa cabdalla sagsaag baa halkeedii u taagay bad baa igu gaaforeegsanoo cirkaan gabalkaa arkayaa mujado gurxumaan dhex galoo ilan geed la cuskadaana buuri
meel allaale meel cuska daabulayo markaasuu maanta difaacaya askartii dadka xasuuqday ee hablaha xidhxidhay sidii boko xaaraam kii nigeria la bowday maamulka boko xaaraam ee askargu horboodayo waxaa kaloo soo gala qodobka labaad mid lahaa garyaqaan baana allaahi bilaatla garyaqaana waa iska dhintay kaasoo midhan baa ceebeynaya lahaa garyaqaan baan lahoo difaacaya oo xeerar baa jiray oo xeerarka jira muxuu u qaban waaya askariga mar qura sooma hadal qaadin doorashooyinka ah siday u kala horreeyaan waa galgalasho ila meerayso war wuxuu wax isdhaama miyaanay lahayn maamulka boko xaaraam iyo intuu dabada ku wataa iyo golihiisa jaariyaduhu ee u shaqeeya waxa malaa wasiirada ku sheegtaane golaha wasiirada ku sheegta golaha jaariyadaha u shaqeeyeen oo mid quli sidii hanooro idinku sheegeen mid hadal ku celin kara oo odhan kara ra'yigaasi aniga ila tahay aniga kaaga oo ka duwanaya odhan kara aanu jirin waa waxaasoo midhan midba reer walba midkii ugu liitay baa la hor keena ummadda haddii waan idiin sheegayaa markay arkeen in cid u soo jeedaa aanay jirinna iska daayo sacad muuse ka dhaqaaqay awl dhaaf sacad muuse iyo reer dhaaf isagana reer samatar baa ka dhaqaaqay intoodii badneed yaa uu arkay inaanu wax allaala wuxuu helayaa jirin xusbiga waddan uu isleeyahay reebna ummadoo dhan baa dooranaysa daraf ilaa daraf inta u dhaxaysa hawd waqooyi bari iyo galbeed iyo inta u dhaxaysa xuduuddii somaliland ha sheegato iminka dee somalilandba ma jirta waa maamulka waxa weeyaan boko xaaraame yaa maamulka boko xaaraame baa la ydhahaa iminka eedhe qof u foodaya ma jiro waxaa ka dhacayana waa arkaysaan tallaabadu hayana waa arkaysaana waati abwaanada xidhxidhiyo carjuuq dhahiyo cagajuglayniyo hankashiyo iyo wixii dee askari kii soo tababaray awrba awrka u horeeyu socodkiisa leeyahay baa la yidhi yaa kuwa halkaa warbaahinta kasii daaya mujaahidka iyo madaxweynaha iyo hadalladaasi haddii ay hadlayaan wallahi maxkamad bay idin soo taagi lahayn kuwi waxaa ku sheegayo wallahi dil bay idiin qori lahayn deldelaad under the golotime deldelaad bay idiin qori lahayn kuwa madaxweynaha iyo mujaahidka iyo mid baa dharkaya beri dhexdaas lahaa madaxweynuhu xabeebileho alkama xabad baa kaga dhacday yaa hadda waxa wallahi bilaahi tullah iyo geeyo shaaxibano lahaa asna lahaa marka burca la soo galayba xabad horta ma soo galayba burcaba ma yimi ha kuma dhacdee dee waa kuwa dhegowriya jooga iyo markhaatiyadii joogaan doolaal iyo ina miro iyo joogeen raggii waa kuwa joogeen ma sooba galay burco baa ka horreysa wallaahi bilaahi tullah kaadharkii la xoqi jiray soomaali weyn baa lagu socdaa iyo ayakiibaa imka u yeedho waa kii garaad yuusuf garaad geeridii hadraawiyin oo badda casa u xil saaran kan imika meeshaas dee xasan sheekh la yidhaaha uu yidhi waxa weeyaan waa xogayaha arrimaha badda cas baa lagala hadlaya uu u ogolaado asagaa wato iminka ka jabuutana uu ka sun qaataaye sunta ah ina geela basal ee kolba dhowrka joog u sii qaado maskaxda ku jirtaa waa taas waxa isugu darsantay waali markii hore aanu raganimoba u dhalan iyo maskaxba ilaahay ugu shugin cuqdad nacayb uu beelo gaara u qabo iyo waali yaa ba isugu darsantay finish haabaan masuura wey waxaan ku soo gabagabeeyey kaa garyaqaankaasna waxaa ku hadlayo alla la magacii garyaqaan baa dishay yaa magacii yaqaan af noolina waa hadlaya ina waa ciyaabaa la yidhi sharciga waa lagula yaqaanaa keligaa mataqaani hadduu asagu kuudha caankaa u hadal waa lagula yaqaanaa dastoorku wuxuu qoraayo cidaad ku khaldi kartaana ma jirto cid yeelaysaana ma jirto dalkana dagaal baad ku wadaane
aynu arma cidda ku faa'iida bal cidda wax ka burburayaan ka ugu horreeya wax ka burburaya waa askariga raggii madigaa ka hadhay yaa reero dambe oo isku diri kartaana ma jirto cudurkii ilaahay ka dhex saartoog dheer iyo bariba baktiga weynu ku islahaa isku dira muuse cabdalle iyo reer sugulana kaasina kaarkaasina xoqmi waa reer sugulluhu isku diraayena ee sii kala qaybqaybinaya kolba qaar lahaa mid ka daba hadal lah xoqmi waa amniga lahayaa ummadda lagu hasawaakii kun jeer baan idiin sheegnay maxaa inankiisa u qaban waayay daba dhaqa iyo amniga ay ka sheekeynayaan iyo geeyo shaaximane markaa halka lasoo qaadalaba amniga marka waa idin salaamaya sidaa iyo nabadgelyo intiina aan salaami jiray intiina aanan salaami jirin inuna irka soo gujiye